kismaayo xarunta dowlad goboleedka Jubbaland soo gaaray Suldaan Maxamed Xasan Barrow oo ah suldaanka beesha Galidle iyadoo airportka caalamiga magaalada Kismaayo ay ku soo dhaweeyeen xildhibaano siyaasiyiin odayaal iyo waliba haween ismarxabeen iyo waliba salaan kadib xildhibaan Ismaaciil Cabdi Kerow iyo waliba xildhibaan Sheekh Maxamed Sheekh Cabdisalaan Sheekh Cabdullaahi oo ka tirsan mudanayaasha xildhibaanada Jubbaland ayaa iyagu saxaafada la hadlay waxana ay ka hadleen dareenkooda ku aadan soo dhaweynka suldaanka Rahmaan Rahiim waxaan halkan maanta farxad weyn noo ah inaan ku soo dhaweyno ugaaska soo jireenka ah oo beesha Galidle ugaas Maxamed Xasan Barrow oo maxaa ka fac u tirsada oo aan ahayn maxalla ugaasyada oo ku soo boodada marka maxalla ay sheeg wuxuu ku yimid markay Muqdisho ay isku soo arkeen madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland oo uu yiri bal Kismaayaha la igu imaado sidaas ayuu ku yimid sidaasna mayo maxalla ay sheeg inuu wixii waxtar u geysto maxalla shacabkan fiican ee Jubbaland oo nabadgelyada ah oo maxalla ay sheeg dhinac kasta ka dhisan oo beeska ka dhisan markaad eegtid maxalla dhinaca nabadgelyada adduunyada 100% aad bay u dhaantaa marka malaaq soo dhawow waxaad ku soo dhawaataa wadankaagii labaad alxamdulillah Jubbaland oo aad marti adan ku ahayn ku soo dhawow wabillahi waxaan aad ugu salaamayaa ugaaska nooga imaaday Baydhabo ugaas soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow martimatid dalkaadii labaad imaatay Baydhabo iyo Kismaayo dismiss wadankaada imaatay marti kuma ihid marti waxa la yiraahdaa ninkii meel kale ka imaaday waxaan aad u mahadcelinayaa dadweynaha iyo saxaafadda iyo gabdhaha haweenka walaalaheena oo marti ugaas soo dhaweynaya oo maanta taagneed aad baan u mahadcelinayaa ugaas waan ku soo dhaweey hadal dib aan martay ka hadli doonaa dalkaadii ku soo dhawow ugaasada dhamaan inta kula socod martida sharafta leh dalkaada ku soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow walaalnimo ku soo dhawow iyo ku soo Kismaayo nabad way aabay nabad way Kismaayo xildhibaanada wasiirada ma soo kala haran ugaas soo dhawow waana ma kala dhankiisana waxa isaguna goobta hadallo kooban ka soo jeediyay suldaanka beesha Galidle Suldaan Maxamed Xasan Barrow waxana uu yiri ay baabaanta ku salaamay mas'uuliyiinta Jubbaland gabadho sharafta leh oo mayba waqti badan geek iriidi ka qaadeen iyo waxna dhawaayaan dhalinyarada ururada bulshada dhamaantii mayba basin ka salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh idan salaamantii mayba noosin ku shal tabaan lama kasaba teetal iyo oo inta isku roogo ka salaamay idan salaamantii una mayba basin ku qoynay Baydhabo iyo koonfur galbeed gurigaanu dadkaanu roog shacabkaanu roog marka martamo ku hiinay Jubbaland marka mayba ku mahadnagay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo ka shaqeeyay 46 sano ka dambeeyay iyo naqato deegaanadan Jubbaland deegaanadan ka nabad fayla Soomaaliya in naqato oo iyadan ka mahadnaqaana mayba shacabka Jubbaland mayba ka booriyaan in iyo nabadiyo haysadaan mayba si hajiisadaan iyo gacanta ka qobsadaan marka mayba Soomaali marka mayba geek miilanka nabad badan way Kismaayo sila socona marka mayba iidan jiilada fadlan intii oo ku badan inuu nasiin coin laakiin duruufo jar aawsho yaasinka kooy waaysan hadii wali ku hor hayti marka mayba hasin ku daayo ko ogeek mayba isin iriidi suurnaayteen mayba basin ku taasiyaan ku raar lahaada inuu mayba waqti horaasiin diirnu hayti laakiin safarkan ay dheeraaday marka iida aan salaamantiin mayba ka kooynay oo mas'uuliyiinta Jubbaland ka horeey madaxweynaha markii mas'uuliyiinta oo reerkan kala kulameen hal dhabaanada sanataradii wasiiradii reer beesha Galidle markii ka shiraan magaalada Muqdisho azuumad usoo ku faday inii oo mayba deegaankii la kooyo maadaama mayba fadhigi Kismaayo iyo Kismaayadana neeska kooyo wali xaal lug wada hadalo maadaama maamulkii mardhow mayba dib leen dhis doono marka insha Allah mayba basin ka kooyn inuu hasin salaamno marka mayba maamulka la dhisaw qeyb uu ku qaadano marka mayba beela marka mayba digil in marfleento ku salaame marka mayba iidan ma hasintii hada wabillahi suldaanka beesha Galidle Maxamed Xasan Barrow ayaa imaatinkiisa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli la filayo bilaha soo socda in ay bilowdaan xulista golayaasha baarlamaanka ee Jubbaland Maxamed Ibrahim Krama Kalsan TV magaalada Kismaayo.